gudoomiyaha hore maamulka degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan Cabdi Daahir Guura Karor isla markaana agaasimaha xiriirka degmooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii ka qabsoontay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana baarlamaanka Soomaaliya ugu doorteen madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota hogaamintoona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Gudoomiyaha Cabdi Daahir Guura Karor ayaa u hambaliyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya lana uga bariyay xilka iyo mas'uuliyadda adag ee loo idmaday oo alla u fududeeyo baarlamaanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa kan gudoomiyihii hore ee degmada Buulaburta Cabdi Daahir Guura Karor isla markaana agaasimaha xiriirka degmooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo ka hadlay aragtidiisa ku aadan doorashadii oo ku soo baxay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana hore u soo noqday madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya. hambalyo doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay. waxaan leeyahay hambalyo, waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo. ilaahay maada u sugnaatay. waxaan u mahad celinayaa baarlamaankii codkooda aqlabiyadda la ku soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba codeeyay waqtigaas adag u dulqaatay. waxaan leeyahay hambalyo baarlamaan ummadda Soomaaliyeed macna ugu fadhiyatiin. waxaadna ka saarteen mugdigii doorashada iyo mugdigii ummadda Soomaaliyeed ku jirtay iyo khilaafkii siyaasadeed iyo isfahmi waagii ummadda Soomaaliyeed iyo doorashadii daahdayna xalay soo gabagabayseen. waa maasantihiin. waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa looga fadhiyaa inuu hogaamintii lagu yaqiinay waqtigii dheeraay oo adkaay oo dalkan uga soo saaray oo federalism ku dhisay oo dowlad goboleedyada uga shaqeeyay oo ummadda Soomaaliyeed ku mideeyay inuu mar labaad soo celiyo. waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw, hambalyo qaasatan aniga waxay ii tahay farxad gooniye madaxweyne Xasan Sheekh inuu soo laabto. baarlamaanku waxay ka dadaaleen inay qof cusub iyo wajhi cusub iyo diyaasbara kale ay waddanka u dhiibaan. waxaan leeyahay markaan go'aankii qaateen waa uga hambalyeynaa baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed. waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad leedahay waa looga baahan yahay in uu qabto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa looga baahan yahay hal iyo laba waa ka badan yihiin waxa looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inuu hogaamiyo. waxa ugu muhiimsan waxa weeye amniga iyo dib u heshiisiin iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhaxeeyo xalliyo ummadda Soomaaliyeed oo isku keeno Soomaaliya oo mid caalamkan heshiis leh oo ballan qaaday in labada shaqeeyaan Soomaaliya hore u socotaan leh. horta 15 May hambalyo waa maalin Soomaalida macna ugu fadhiso, waa maalin qaali, waa maalin iftiinkeedu badnaay, waa maalin xisaab Soomaaliyeed ku jirto, waa maalinta dhalinyarada. mar labaad waxaan leeyahay 15 May waxay ku soo aaday maalin Soomaaliya lagu sabata bixinayay oo wadada lagu furay. ilaahayna wuxuu waafajiyay wadadaas tareenka maraya ninkii wadi lahay xalay ay mataqaanaa baarlamaanka gacantoodu qabatay. waxaan leeyahay hambalyo mar labaad. sidoo kale gudoomiyaha Cabdi Daahir Guura Karor ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu xoogga saari doono tayeenta iyo kor u qaadista ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh waa ninkii aasaaskooda qaybta weyn ku lahay. isbedelka maaliyadeedna dowladnimada la socda asoo ka soo shaqeeyay boorasad ku jirto ayaa mataqaanaa waxyaalaha ay dareemeen ay u bilowdeen waxay hadda haystaan waa u sii kordhayaan maana kama yaraanaya insha Allah. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waa ninkii wadooyinka furi jiray amniga ka shaqeey jiray oo gobolada Soomaaliya iyo caasimadda isku xiray dowladnimadana macalinkeedii oo macalinkii iskuulka soo ahay dowladnimada macalinkeedii oo macalinkii dimuqraadiyadda oo macalinkii dowladnimada waxaan rajaynaynaa ciidamadu inay farxad ku noolaadaan. waxaan leeyahay ciidamada hambalyo soo dhaweeyo dowladnimada ka shaqeeya sharciga wax ciidamada uga halaabi doona isbedelka oo bataataba jira ma jiraan. madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka shaqeey doonaa 1 iyo 2 iyo 3 amniga oo ah wuxuu la shaqeey doonaa ciidamada waa lagu yaqaanaa tuutihiisina waa diyaarsan yahay insha Allah. Khalid Xumaas Maalka Case Hirshabeelle TV Muqdisho.